عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم أصحابتك kusoo dhawaada janalka Faiza's World. waxaan rajeynayaa dhammaantiin meel kastoo dunida aad ka joogtiin inaad ku wada nabad qabtiin. soo dhawaada asxaabta qaaliga ah. maanta videogeena waxaan ugu sameynayaa scrub iyo maskada. marka waxa waaye maska gacmaha lagu cayilinayo oo gacmaha cayilinayso. scrubkan wuxuu naga saacidayaa in maskada ay si fiican noogu shaqeyso. marka maanta videogeena waxa waaye mask scrub oo gacmaha u sameysanayno. marka soo dhawaada asxaabta, aad iyo aad u mahadsantihiin. videoga like dhaha, share gareeya, asxaabtiin u share gareeya. haddii aanu cusub tahayna fadlan janalka subscribe ka taabo, gambaleelkana on ka dhigo si videoyaasha cusub markii aan soo gelino si toos ay kugu soo dhacaan insha Allah. aad iyo aad ugu mahadsantihiin dhammaantiin. marka waxaan sameynaa scrubka wuxuu ka kooban yahay qaxwo iyo sokor iyo caano powder iyo liin dhanaan. waxaa kala gadaal ugu darsanaynaa saliidda liitad oo glycerinka iyo wax yar oo wardi ah ama biyaha ubaxa. marka intaas uu ka kooban yahay. haddana waxa waaye waxaan ku shubanaynaa bakeeriga, waa qasanaynaa insha Allah. kulligoodna waxa waaye hal qaado oo sokor ah, hal qaado oo caano powder ah iyo hal qaado oo qaxwo ah. intaas uu ka kooban yahay scrubkeena. scrub waxa waaye si fiican u shaqeynaya ma sha Allah. hadda anaga waxaan ku qasanaynaa glycerin aan ku qasanaynaa, saliidda glycerinka iyo wardi aan ku qasanaynaa. waxaa kale ku qasanaynaa liin dhanaan. haddii kasto aloe vera gelna ma sha Allah scrubkan aad iyo aad ugu fiican yahay, si fiican u shaqeynaya bedelka oo wardiga iyo glycerinka. haddii yani bedelkooda lagu qasto aloe vera gel, aan hadda aloe vera gel ma ii taalo, يعني waxaan umaleynaa inay ii taalo bas, laakiin haddii aan fiiriyo ma ii taalo. marka haddii idinka idin taalo aloe vera gel ma sha Allah scrubkan aad iyo aad u shaqeynaya. waxaa kale ku darsanaynaa wax yar oo liin dhanaan ah. liin dhanaanta ma ka badinayno, adiga hal qaad camal aan ku darsanaynaa oo liin dhanaan ah. waxaa kale ku soo darsanaynaa isticmaalaynaa saliidda oo glycerinka, wax yar oo saliid glycerin ah. intaas ka isticmaalaynaa qiyaastii adiga qaadada yarta nuskeeda camal adig. iyo waxaa kale kusoo darsanaynaa biyaha ubaxa, wax yar oo biyaha ubaxa ah aan kula qasanaynaa. خلاص وكاسة هدنا اسكرابك وحواي ما شاء الله اسلام مركز سوق قسمايا ما شاء الله تبارك الله. خلاص وهي هدنا اسكرابك يعني سانو ديار نوبي هي ما شاء الله وكاسة صنوق صوب اسكرابك. مركز اسكرابك محو نساعدها ويا اصحابتي. اسكرابك مركو روحو نساعدها وحو قادايا ان قعناها وحو قادايا ان مدمدوغا ديد سكينكو قادايا ان sidoo kale wuxuu naga saacidayaa dulduleelka oo maxaa la skinka oo furaya si oo maskada ay si fiican noogu shaqeyso. scrubka saas waa shaqadiisa. haddana gacmaha u isticmaalaynaa. gacmaha marka loo isticmaalayna in lagu xoojiyo ma ahan, gacmaha haddii lagu xoojiyo siiba xubnaha marka lagu xoojiyo waxay ka qaadayaan badbadooyin ka qaadayaan. marka gacmaha marka loo isticmaalayo scrubka waxaa la sameeyaa si khafiif ah, masaaj yar oo khafiif ah saas loogu sameeyaa. saasaan u isticmaalaynaa si yar oo khafiif ah. xubnaha meelahan tod oo madmadow ka qaadaya marka si tartiib ah oo khafiif ah saas loogu masaajeeyo. saan rabaa in loogu masaajeeyo. marka saasaan ugu masaajeynayna adi ilaa iyo 3 daqiiqo 4 daqiiqo meelahaas. kabacdina waan iska soo dhaqaynaa insha Allah. kabacdina waxaan idin tusinayaa maskada oo ugu talagalnay gacmaha oo gacmaha cayilinaysa. ma sha Allah cayilin leh ma aha, taftiixay siinaysaa, midabkay furaysaa. sidoo kale nacuumay ka helayaan gacmaha, naacim ay ka dhigayaan ma sha Allah. gacmo oo qurux badan oo baby ay yeelanaysaa haddii oo si toos loo wada alaabtaan. marka haddana waxaan u sugayaa adiga 3 daqiiqo 4 daqiiqo meelahaas. kabacdina iska soo dhaqaaya insha Allah isku soo noqonaynaa. waa kaas haddana markii aan ka soo dhaqay ma sha Allah saasoo ku soo baxay gacanta dhan nacuum ma sha Allah, jileec ku soo baxda naacim ah. kaasaan nacuumadaas ku soo baxda gacanta. haddana waxaan diyaarsanaynaa maskada. haddana waxaan sameysanaynaa maskada iyadana maska aad u fudud. waxay ka kooban tahay khamiir ama leebito ama faxiso nin walba soo yaqaano. waxaan isticmaalaynaa hal qaad weyn oo khamiir ah. kana waxa waaye waraango ama corn flour, corn starch، نشا بالعربي نشا لها.
iyo waxaa kaloo isticmaalaynaa caano bowdar oo hal qaada asagana iyo ma wardiin ku qasanayna intaas waaye maaskada iyadana maaska waxa waaye laakiin facaal si fiican u shaqeynayso oo gacmaha nafaqeynayso oo gacmaha cayilinayso gabdhaha isoo weydiiyay markasta oo dhaho waxaan rabnaa maaskaadka oo gacmaha lagu cayilinayo iyo lugaha maasha allah maaskadan aad iyo aad u fiican tahay asxaabta isla ogaada maaska waxa waaye la hubo waaye maasha allah khamiirka waxa waaye sidiisaba waa cayiliyaa sidii oo cajiinka markaan qasano canjeerada aan qasano u fuurinayo cajiinka saas camal oo gacmaha iyo wajiga marka loo isticmaalo iyo lugaha buu fuurinaya haddii si toos loo wado waaye maasha allah aad iyo aad u fiican yahay aaminna waa khamiirka maasha allah yani wax oo waxa waaye oo la hubo oo waxba ku dhibeynin oo dabiici marka haddana waa bilaabanayna insha allah khamiirka marka waxaan ka isticmaalaynaa hal qaado oo weyn oo khamiir kasa hal qaado oo weyn oo waxa waaye oo khamiir ama faxiso waxaa kaloo kusoo darayaa hal qaado weyn oo xaliib bowdar ama caano bowdar kasa hal qaado waa isne oo caano bowdar waxaa kaloo kusoo darayaa nasha ama waraango iyadana hal qaado waxaa kaloo kusoo darsanaynaa hal qaado oo waraange hal qaado weyn oo waraange intaas waa marka maaskadeena waxaa ku qasanaynaa marka ma ward haddii la rabo waxaa lagu qasan karaa caano ama yoogada lagu qasan karaa xataa waxaa ku qasanaynaa ma ward wax yar oo ma ward aan ku qasanaynaa insha allah maasha allah maaskadan khamiirka maaska waxa waaye si fiican u shaqeynayso haddii si toos loo wadana isbeddel aad ka doontiin insha allah marba marka dambeysa waxa waaye gacmihiin waa isbeddelayaa la-inuu khamiirka maasha allah khamiirka waxaa si fiican u shaqeeyaa facaal waaye laakiin waxaa la rabaa si toos in loo isticmaalo oo si toos loo wado xataa maalin kasta haddii la rabo waa la isticmaali karaa khamiirka waa la marsan karaa maaskadan marka asxaabta qofkii raba wejigana waa u isticmaali karaa wejigana waa la marsan karaa lugaha haddii la rabo waa la marsan karaa maaska waxa waaye oo facaal si fiican u shaqeynayso khamiirka hore uga soo hadlay videoyaal badan kasoo sameeyay video waxaa jira oo kaamil oo khamiirka bas leh aan ka hadlaayo janalka haddii aa hoos u degtiin waa arkaysiin gabdhaha oo nagu cusub gabdhaha cusubna waxaa leeyahay soo dhawaada gacmo fara kusoo dhawaada janalkiina waaye janal qurxin waaye wax badan aa ka faa'iidi doontiin insha allah caanahana maasha allah gacmaha waa noo nafaqeynayaan wayna ratibayaan waxaa kaloo ku darsanay nasha ama waraangadana maasha allah iyadana waxaan kusoo darsanay hal qaado oo waraange yani kulligood waxaan kusoo wada darsanay hal qaado waraangada iyadana maasha allah gacmaha waxay ka qaadaysaa kadkadoodka way taagaysaa بروتين بدن اللهذا يعني وانا فقينا برضو ايضا يعني 3 شيء او حواي او كلا ددرن او قعمها نو فقينايان او عيلينايان ما شاء الله واتس اصحابك ugu dambeystii maaskada saas ku soo baxday maaska qurux badan oo creamy ku soo baxday taas ugu dambeystii ما شاء الله maaskada marka isticmaalkeeda waxa marka hore scrub in loo soo sameeyo gacanta scrubka marka u sameysano kadib hadda maaskada amarsanayna maaskada marka waxa ku haynaysa ilaa ay kaaga qalaleyso marka ay ku qalasho massage lagu sameeynayo ilaa in maaskadan waxa maaska botox waaye yani marka ay qalasho caadi caadi ugu dhaqaysiin insha Allah waxa la rabaa in maalin kasta la wado oo maalin kasta la isticmaalo ilaa ka aragtiin yani natiijo fiican khamiirka iyo caanaha iyo nashadaba ma sha Allah waxa way alaab oo yani usraacaan si fiican isku shaqeynayaan way maaskadan waxa way maaska oo yani hadii aad rabtiin gacmaha inay idin cayilaan gabdhaha soo weydiiyeen oo dhaheen gacmaha waxaan rabnaa inaan noo soo sameeysid maaska oo gacmaha cayilinayso maaskadan ma sha Allah aad iyo aad u fiican tahay hadii la rabo xataa waxa lagu darsan karaa xulbada laakiin gabdho badan ka qayliyeen oo riixadeeda diideen hadii yani xulbada caadi ahaan aad isticmaali kartay ay ku dhibeynin hal qaado xulba u ziyaadsanaysa hadii xulbada aad jecleen riixadeedana waxa waaye intaan baxtaa si fiican ku shaqeynaysa insha Allah marka waxa idin leeyahay asxaabta isla ogaada
ادي هذا وهل دونتين ان شاء الله وحال ربع لكن ان ست توصل ترطيب اليدين يعني هذا منتج من غير في الشهر عندك 60,000 غير في يعني في الخرط تاع يديك يعني في اهتمام بيديك وتقدري بروديرما تقدري تستعمليه ليديك ورجليك وحشاكم غير باش عندك 20,000 تقدري تستعمليها ليديك ورجليك حشاكم ووجهك وكاسا هذا ugu dambeystii sasii kusoo bixin gacmaha ma sha Allah marka waxaan rajeynayaa asxaabta dhamaantiin ka wada hesheen oo ka faa'iideen haddii aad ka hesheen waxaan idin codsanayaa videoga inaad like tinoo saartiin insha Allah waxaan oo balan videoga dambe wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu